كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا نور يضيء ظلام دنيانا. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعشركي koob iyo toddobaatanaad qeybtii labaad ee dhisidda ubadka ee barnaamijkeenii barbaarinta ubadka. muddooyinkii u dambeeyey waxa aynu soo dhisaynay ubadka shucuurtooda. qeybtii waxaynu wadnay markaa ciyaarta, ahamiyadda ama hadafka ciyaarta in ubadku ciyaaraan ama lala ciyaaro ama waxay ku ciyaaraan la siiyo. hadafka ku jira waxa uu yahay. maanta waxaynu eegi doonaa haddaba anwaacda ama markaa noocyada ay markaa leedahay waa maxay ciyaartu. innaga inta badan waxyaabaha ubadkeenna waa maxay ka maqan maaragtay aadka waa maxay aynaan qeybo fara badan ama waxyaabo fara badan ay naga maqan yihiin ama aynaan kasii aqoonin. waxaa ka mid ah waxyaabaha ubad ku ciyaarayaan iyo noocyada ciyaarta nooca ay tahay. waxaa laga yaabaa qofka Soomaaliga ahi inuu garanayo oon ilmaha inuu banaanka aado kubad soo ciyaaro kadibna uu soo laabto, intaasba laga yaaba inuu ku eg tahay. laakiin waxaa jira noocyo fara badan iyo siyaabo kala duwan oo fara badan oo ubadka adigoo shucuurtooda dhisaya, caqligooda dhisaya, garaadkooda, maankooda korinaya aada ciyaar u siin kartid. marka waxaa la yiraahdaa ciyaarta waxa intaan horta noocyadeeda aan la sheegin waxaa ka mid ah waa la yiraahdaa in la sheego marka hore qaybaha mataqaana ay tahay. marka qayb waxa la yiraahdaa waa qayb munadam ah iyo mar غير munadam ah. macnaha qayb waa maxay dee qawaacid leh oo waa maxay rules leh oo la ilaalinayo qofku rabo maxay rules ka raaco, iyo qaybyadu waa maxay qofku iska freedom ah oo iska ciyaari karo waxba aan qofku ilaalinayn. mararka qaarna waxaa la yiraahdaa ciyaar waa qayb qofku keliga ciyaari karo, keli loo ciyaari karo, iyo ciyaar marka ah waa maxay si jamaaci ama markaasi waa maxay group loo ciyaari karo. mararka qaarna waxaa la yiraahdaa waa ciyaartu waxay noqon kartaa mid markaa muwajih leh, macnaha qof dadka ciyaaraya jihaynaya oo kala hagaya, iyo midaan waa maxay markaa qof muwajih ama maxay aan u baahnayn. haddaba haddaynu u nimaadno si markaa dhiibliya ama si markaa tafsiil aynu u kala qaadno siyaabaha ubadku ay u ciyaari karaan ilaa 6 ilaa 7 ka mid ah baa la yiraahdaa waxyaabaha ay ku ciyaari karaan. ta koowaad baynu maanta ka soo qaadanaynaa, ta koowaad baynu markaa 4 u sii qaybinaynaa. ta koowaad waxaa la yiraahdaa alcaab albadaniya ama waxa loo yaqaano physical play. ciyaaraha ubadku waa maxay ay ka sameynayaan jirkooda markaa, oo ciyaartan waxa la yiraahdaa ubadku waxay ka qabanayaan oo kaliya waa jirkaas ay ka qabanayaan, waa physical play way. marka physical playgaasi waa 4 qaybood. qaybta koobaad waxa la yiraahdaa waa markuu ilmuhu yar yahay oo waa maxay aan shayga qaban karayn oo waa maxay sanad ka hore dhowr bilood hore uu ku jiro si loo ciyaarsiinaya ama soo ciyaar u ciyaaraya. isaga waxa la yiraahdaa waa in si markaa dhaqdhaqaaq ah ama si movement ah ama si markaa xisiya waa maxay dareenka ama shucuur leh uu arko markaa. oo muxuu arkayaa? wuxuu arkayaa waa maxay salahan wax yar soo wareegaya oo kala seer kalin ah ama waxyaabaha waxan yar mataqaan ubadku marka yareen lagu dhaxrido ama ku dhaxaya waa maxay lagu dhax qaadayo oo kale inay ugu jiraan waxyaabo yar ciyaaraya marka oo salaan soconaya ama saa u wareegaya ama biyaha ku dhex jiro ama waa maxay colors ha lahaado ama cod ha lahaado, soundki ha lahaado. isagu waa maxay ma samayn karayo, laakiin isagu maadaama aad u daayar yahay isaga intaas ciyaar ugu filan. inta mataqaana uu dareemayo oo arkayo dhaqdhaqaaqa harakaadka waxa uu saaran yahay isaga ciyaartiisa waxa la yiraahdaa waa taa. waa maxay qaybta ka dhaqaaqay qaybta marka waa maxay waa jirka. qaybta labaad waxa la yiraahdaa marka taa hore faa'iidooyinka ay leedahay waxa kamid ah baa la yiraahdaa waa qaybta ugu horeysa ee ubadka ciyaarta waa maxay looga bilaabo. waxa la yiraahdaa faa'iidada labaad waxa weeye qofku isaga kaliya marka waa maxay ciyaarta sameynaya ama arkaya. ta saddexaad waxa la yiraahdaa waxa weeye waxyaabaha ku faa'iideeyo waxa kamid ah ilmuhu markuu yar yahay
macnaha inuu kala garto dee waxaan in meesha biyo ku jiraan, waxaana kalar inay tahay casaan iyo madow iyo buluug, saa u kala garto. yacnaha codkii inuu kala garto, codka macnaha waxaana ku ciyaarayo dhawaaquu bixinayo, soonku noocuu yahay, taasuu ku kala baranaya. haddaba markuu intaa kasoo gudbo oo tusaalahaan sanadkii koowaad buuba soo galay, oo waa maxay sanadkii saddexaad ma gaadhin, sanadkii koowaad kii labaad buu ku jiraa. waxyaabaha isagana ciyaarta markaa loogu sameynayo waxaa ka mid ah baa la yidhaahdaa waxaan markaa loo yaqaano dee markaa boodboodka oo kale, macnaha inuu boodboodo oo kale, in xadhig waa maxay xadhig tusaalahaan uu ku ciyaaro oo kale, waxyaabaha maxay la korayo oo jaranjaro ama wax yaroo kale waa maxay guriga u dhex yaalo oo kale uu ku ciyaaro markaa la saarayo. waxyaabaha ubadka inta badan markii hal sano 2 sano ay jiraan, kuwaasa markaa waa maxay ugu badan baa la yiraahdaa. ama sidoo kale waa maxay waxyaabo yaroo seerkal ama boolka oo kale, kubadahan yare waa maxay seerkalka oo kale ee wareegsan ee guriga inta loogu soo dhex qaado markaa isku tuurtuurayaan, kana ku tuuraya ama kana ku tuuraya, loo soo qaadayo tuurtuurayo. waxyaabaha waxaa la yiraahdaa waa maxay waxay ka mid tahay markay da-da ku jiraan, markaa 2 jirka ama markaa maxay halka sano ay ku jiraan, waxyaabaha yar waa maxay ayuu markaa sameynaya. taafaraad ee ka mid ah ciyaaraha ubadka aynu ku dhisi karno jirkooda ama shucuurtoodana ilaalinaya, waxa la yiraahdaa markaa waxa weeye ciyaarta markaa loo yaqaano khashanka marka, ama waa loo yaqaano markaa rough and tumble play. iminka uu ka soo gudbay wuxuu arkayay, uu ka soo gudbay ciyaarta iska fududeyd markaa waa maxay keliga uu sameynayay, hadday boodbood waxyaaba noocaas noqoto ama wuxuu yar tuurtuurayo oo fudud. iminka wuxuu soo gaadhay sanadkii saddexaad oo kale ama kii afraad, meelahaas ku jira 2 sano ku jira. marxaladda waxa la yiraahdaa waa marxaladda markaa dhexe ama marxaladda markaa 3 iyo 4 intuu jiro u dhaxaysa. waxyaabaha markaa looga baahan yahay waxaa ka mid ah haddaba inuu qof kale markaa uu la ciyaaro oo 2 qof waa maxay ay ku sameeyaan ciyaartan oo kale. waxaa ka mid ah waa lahaa in dee gacmihiisa oo kale waa maxay qof kale markaa isdhex geliyaan oo kale. ciyaarta inta badan 2 qof isdhex geliyaan waxaa ka mid ah waa la yiraahdaa waxaynu u naqaano markaa legdinta oo kale baa ka mid ah. waxaa ka mid ah maxay deena kubadda oo kale waa maxay ku wada ciyaaraan oo kale. waxaa ka mid ah waa maxay waxyaabo lagu boodboodiyo oo kale guri dhexdiisa maxay nimanka waa maxay ay sameeyaan baa ka mid ah. meel sare waa maxay la korayo oo kale maxayna ku tartamaan baa ka mid ah. waxyaabahaas oo dhan waxa la yiraahdaa markii 2 qof ku sameynayaan waxay ka caawinaysaa markay xarakaadka ama dhaqdhaqaaqa labada ay sameynayaan, waxa laga yaabaa waa maxay in dareenkoodu aad isu bedel oo dee qosol iyo qaylo ay meeshii waa maxay ay timaado. marka waa maxay taas waxay ka qayb qaadanaysaa dee uu farxaya, uu qoslaya, waa kan ciyaaraya, nashaad badan, firfircooni badan baa ku jirta. waayo ubadka yar marka yaryar yihiin waa wax la yiraahdo waa more energetic, marka macnaha tamarta ku jirta, daaqada ku jirta ayaa dee aad u fara badan. marka waalidka waxaa looga baahan yahay dee inay tamarta ku kaydsan ay markaa si ay qaabka u gubayaan, waa inay qaab marka positive oo fiican marka ay noqoto. waxyaabahaas markaa waa maxay ubadka markaa u sameeyaan. ta afaraad ee ubadka aynu ku dhisi karno ciyaarta markaa jirkooda waxaa la yiraahdaa waa ta markaa loo yaqaano group playga marka, ama si jamaaciya markaa ay ku ciyaarayaan. iminka 1 jir uu ka soo gudbay, 2 jir uu ka soo gudbay, 3 jir uu ka soo gudbay. ciyaarahaas oo dhan wuxuu soo gaadhay iminka waa maxay xilligii inuu gaadho marka waa maxay 5 jir. marka iminka tan wuxuu u baahan yahay inuu la sameeyo 1 qof iyo wixii ka badan ay noqdaan 3 iyo 4. inta badanna waxaa la yiraahdaa waxa ugu fiican markay da-da marayaan markaa waa maxay awlaadul markaa jiiraanka la yiraahdaa, macnaha deriska ubadka yar, deriska wada xaafada, deriskaaga ka kuugu dhow, meel yaroo soke ama guriga u dhow waa maxay inay ku sameeyaan marka ciyaarta waa maxay ay ku ciyaarayaan, ama kubad ha noqoto waxyaabo yar kale fudud waa maxay wanaagsan ha noqoto. taa waxa la yiraahdaa waxa muhiim baa la yiraahdaa inay helaan waa maxay ubadka ciyaarayo qof ka weyn waa maxay dee kala hago, waa maxay kala toosiya, ama waa maxay dee qof isaguna waa maxay ilme ama si waa maxay iyaga ugu weyn oo kale waa maxay dee ugu da-da weyn in markaa loo dhiibo waa maxay isagu waa maxay dee u kala jiheeyo, macnaha waxyaabaha raaci lahaayeen uu dee waa maxay hogaanka ama qaa'id ama hogaamiye waa maxay uu noqdo marka 4 qayboodba. ilmuhu markuu waa maxay hal sanadka ugu horeeya ku jiro waxyaabahaas uu arkaya ku ciyaaraya,
ee waa maxay maayaa u saaran yahay waa u saaran markuu soo gaaro 2-3 soo gaaro mastery playgaas uu sameyn ciyaaraha waa maxay marka adag buu sameynaya boodaha noqoto xarigan waxyaabo sameynaya markuu soo gaaro maxay 3 uu sameynaya ciyaarta marka rafka ama legdinta oo kale kuwaas ka mid ah markuu soo gaaro maxay daada 5 iyo 6 meelaha soo gaarana wuxuu sameynaya midna ka maxay good marka ama tan loo yaqaan group playga dad badan marka wala ciyaaraya marka siiba maxay xaafada jaarka oo kale ayuu marka la ciyaaraya marka taasi waa hal qayb oo kamid ah ciyaarta ubadku ay sameynayaan waana taa waa maxay loo yaqaan ciyaarta marka dhisaysta jirkooda marka kuwa kale ilaa waxay noo harsan 5 qaybood oo kale ubadku maxay ku ciyaari karaan casharada dambe ay insha Allah ta'ala maxay baynu ka dhiganaynaa inahaasayna maanta ku jirnaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam